Hello everyone, waa idin salaamay. Magacayga waa Qalbos University. Weekly recap baan isleegaynaa. Ligii baxay, biaskeenii iyo tiradii baxay baan isleegaynaa. Sida u wada jeedaan xaggan waxa weeye waa DXY. DXY weekii hore waxaan rabnay in loo qaado biaserkan. Course waa la qaaday biaserkan reaction yar baa ka baxay. Hal dhiyo salaa baxay. Haddana waxaan rabnay in loo qaado biaserkan. isagana waa la qaaday. haddana waxaan rabnaa in la qaado biaserkan. marka dhiiga soo waxaan doonayaa amba in laga soo noqdo value imbalance-ka biaserka la soo qaado sal dhaco weekly fair value gap-ka la soo taargareeyo halkan maca daily fair value gap baa ku jira in salserkan haddii biaser la qaado salserkan la taargareynaya. marka weekan waxaan intaas waxyaabahan ka rajaynay inkastoo aan doonin biaserka in loo qaado way dhacday dana biaserka kale lagu daray way dhacday. haddana waxaan doonayay in biaserka la taargareeyo la soo tama value imbalance-ka biaser sarno naga sareeya liquidity naga hooseeya ma jiro aan daily fair value gap-kana iyo weekly fair value gap-ka. markastoo biaser la qaado salser la qaado biaserkana la taargareynaya taa xisaabtu darso. sidoo kale iyadana euro USD-dana waxaan rabnay ula jeedeen biaskeenii weekii hore videogaada daawato weekly recap-kan la soo dhigay in biaserkan la qaado. course biaserkan waa la qaaday haddana OP-gan baa la joogaa oo macquul in salserkan laga soo noqdo amba OP-gan inta laga sameeyo reaction laga trade gareeyo. marka si kasta ay noqoto suuqan dheel garanna taas waa suuq waxaan ka filanayo. hadda OP bay joogtaa meel discount-na way joogtaa in reaction laga bixiyo fair value gap-ka la taarget gareeyo meel premium din la soo salgarayo. taasina waa idea-hayga. halkan oo kale waxaa ku yaala salser liquidity baa ku yaala haddii biaserkan la qaaday oo reaction baxay salserkan waa taarget garanaya. marka idana waxaan isleegaynaa waa dailyga sidoo kale waxaan isleegaynaa 1 hour-ka wax dhiiga soo ka socda hadaynu ugu daadegno 1 hour sida ula jeedaan lacagtan waxay ka kacday fair value gap waa kan fair value gap ka kacday la taarget gareeyay haddana biaserka ma la taarget garanaya. marka isaga 1 hour-ka waxaa macquul in salserkan hoose la qaado si loo taarget gareeyo biaserka sare in salserkan la qaadaa reaction baxaa. haddii kan inta furmo ayuu salserkaas biaserka sare soo qaadaya reaction bixinaya. sidoo kale iyadana 15 minute-kaygana wax saas uma arko waxa macquul inuu fair value gap inta ka kaco biaserka sare la taarget gareeyo. marka suuqan isniinta lagama hordhaco isniinta la trade gareeyo salaasada la trade gareeya. marka liquidity-ga la taarget gareynayo naga sareeya liquidity naga sareeya inaan liquidity noqon. sida ula jeedaan lacagtani waa iyadana waa euro USD 1 hour-keeda waxay soo noqotay fair value gap waxaa la qaaday eagle lowiskan baa la qaaday eagle lowiskaasaa la qaaday ka baxay fair value gap-ka 30 bay bixisay inkastoo aan bay ka rabriyay anigu haddana aniga micii fursadaas ma bixin macaashar badanaa waxa baxa 10 bbs ama 30 bbs intaasa baxda. iyadana macquul in la qaado salserkan hoose oo hadda waxay joogtaa meel fair value gap digsare biaserkaasa la qaadaya. sidoo kale 15 minute haddaad degto 15 minute waxay joogtaa meel OP ay joogtaa in laga daato salserkan hoose iyadana ay noqoto waa deal sababtoo wax halkan oo naga xiga haddii kalena waxay qaadaysaa eagle lowiskan bay qaadaysaa eagle lowiskan hadday qaadana waa gool weeye xaggan price stop bay nooca loo furo ayaa la buy garanaya.
waa meel UPA inoo joogto waa meel laga noqon karo marka intaasi waa big deal lacagtan u wala jeedaan iyadana waa SPX 500 iyana dailiga eedno dailiga iyadana waxaynu ka filanay wiigii hore isniintii hore jimcihii hore ay waxay qaaday ay bayser qaaday jimcihii hore ayay bayser qaaday sida wala jeedaan jimcihii hore ayay bayser kan qaaday anoosana way qaaday marka waxaan doonay fairvalue gapka in la tiragereeyo talaasadii waan ka salgareynay arbacadiina way baagareynay khamiisiina soo salgareynay jimciina way baagareynay marka weekly profilkaaga haddii aad ogtahay iyo meelaha la sameynayo haddaba bigan bay joogtaa halkan waxaa naga xiga fairvalue gap macquul isagana in la tiragereeyo soo salgareyno wataa meel lagu tiirsan weeye وقالوا ميل بريميوم ميل ديسكونت اللي كان ددوني سنة باقرأ حتى مع الأو بي جنبك كعبي إن دنا في الفريق جاب كونجريش هو بحسن روح سلاقنا انتريدي بحي بين سلاقنا يورو يو اس دي ويجن على سلح تريب سلبت تربك بحي كانوا ويجن يجمعوا شوية طلبان قاطية بايقها halkan siduu ula jeedaan isniintii horan kasoo bilaabaynaa wuxuuna maalmaa deebin joognaa sideed grade ma bixin tuesday isniintii trade kama baxay hadda laakiin 20 buu bixiyey siduu ula jeedaan wuxuu qaaday halkan buu meel fairvalue gap ku tiirsaday london haygiiba xaggan haa baystopkaasuu sameeyey wuxuu ku noqday shiftigaasaa dhacay fairvalue gapkaasaa laga soo noqday 1 to 2 bay ahayd qofkii 20 bib ka doonayay 20kii bib ka helay laakiin qofkii kale ka doonayay 1 to 3 brief bay kaga dhacday dadagan ula jeedaan calaamadeena soo furo third positionka soo bilaabo I think 20 bibs 28 bibs marka isniintii fursadda soo baxday talaasida ayaa naloo sameeyey high of the week talaasidii waxaa naloo qaaday bayserkan bay naloo qaaday wax kale naloo sameeyey waxaa la qaaday london highgii baa lagu daray baystopkan baa dhacay wax kan muu shiftigan baa dhacay laakiin fairvalue gapkan kumay noqon laakiin traderka baxay gbusd bed gbs bay iyaduna magacan tahay inagu gbusd baan qaadanay gbs baa la mid ahayd waxaan doonayay fairvalue gapka in laygu soo noqdo entire baa diiday laakiin gbs baa arkay inay fairvalue gap kusoo noqday taasaan ku qaatay arbacadiina bayserkan bay qaaday bayseradan bay qaaday laakiin waxay jirin bixin oo news baa jiray sidoo kale khamiistiina isagana waxaa la dhacay waxaa la sameeyey waxaa la qaaday briefshii dhiilahay meelna lagu tiirsanaa oo maxaa dhacay haddii briefshii dhiilahay la qaado ma baanidaan si ahanay loo qaado gaasyanhay baa lama qaadin shiftiganba waxaa laga noqday shiftigama laga noqday waa la daatay 1 to 3 marka waxana waa saas waa adag maaha 1 to 3 gaasaa la daatay jimcihiina fursadda baa baxday waa ahayd meel OB ku tiirsatay asianlogii baa lagu qaaday marka qaarkood waa qaata entry baystop baa ku dhacday shift fairvalue gapkan greener blockasi ku noqotay 1 to 3 new sida u og tahay in trigii sida loo qaato inay ku caddahay meesha la tiragereynaya ama meesha gasiid marka fursaddaas ayay kana baxday sidoo kale isleegna lacagtan SB Vegas 500 waa lacaganta ugu jecelay weeye ayaan soo bilownay isniintii soo bilowno monday watan isniintii waxaa dhacday suuq wuxuu sameeyey waxaan qaatay am session baan qaatay tradekan halkan waxaa ka dhacay ko waxaa lagu qaaday muxuuha kalseerkan hoosaa lagu qaaday
meelo biyo kuu tiirsatay waa ku dhacay fair value-gaaga kasoo noqotay ilaa buy side-kan sare target garee intii entry-gaasaa baxay intii qurux badan fair value-gaaga shift ay nooc sidoo kale iyadana khamiistii maxaan jimcihii waxa baxay talaasadii entry-gan baa baxay waxa lagu tiirsaday meel fair value-gaaga waxaa kaloo dhacay buy side-kan baa lagu qaaday hay'adii baa lagu qaaday aniga shifti markay samaysay waxaan doonaynaa in lagu noqdo breaker block ama fair value dhicin oo iska daacad talaasadiisaasaan ku misgarinay tirarka arbacadii waxaan qaadanay 2 trade baa arbacadii baxay buy iyo sell kow waxa weeye in meel laygu tiirsaday meel A to B lay joogo asian hay laga qaaday buy side-dan laga qaaday iyo waxaana buy side la qaaday anagu sell side-na taarganay dambe 1 to 3 anagu soma maxaa dhacay buy stop baa ku dhacay shiftigaasaan ka qaatay 1 to 3 ilaa OB-ga anigu saad u taqaano sida wax loo entry loo galo in ogta meesha laga baxo maxaa la qaaday maxaa laygu tiirsaday kii buy-gaana sababtoo in liquidity-ga loo socday meel OB-ga laygu tiirsaday London logii baa la qaaday haddii London loo la qaadan waxay ogaatay in haygiisa la qaadayo marka isagana entry-ga saasaan ku qaatay shift fair value-ga wuxuu intaas ahayd maxaa dhacay khamiistii isagana entry-gan baa baxay meel OB u tiirsaday asian-gii baa la qaaday waxyaabahaasoo dhan baa la qaaday waxsaba macaan shifti baa dhacay fair value-ga kuma noqotay way daadatay ilaa waxay daadatay ku dhawaad 50 RRI ilaa waxa la qaaday buy side-gaasaa la qaaday inaad ogaataa in entry-ga ma baxay haddana raf entry-ga ma qaadan kan baan qaatay kana briefing buu iga dhacay oo habeenimo ila gaadhay saa markuu soo furay intaa yar waday baan briefing-ga keensaday ma ogolin inuu trade iga dhaco buu inuu briefing iga dhaca marka guys weekly recap-kan intaasuu ahaa bil wacan bay noo bilaamaysaa akoonada ay soo gubin bilyo ugu wacnaa wuxuu socdaa heer baan ii rajaynaya dhammaantiinba